kulanka waxaan noo socon doonaa muddo 2 maalmood ah dabcan waxaanu ka hadli doonaa ama kulan ku saabsan yahay in la isku wacyigeliyo haddii Ilaahay ku idmaayo wadaniyada iyo wada noolaanshaha iyo haddii Ilaahay ku idmaayo iyo walaaltinimada waxay tahay dabcan aqoonyahan iyo dad professor ah baalkan noo jooga oo barnaamijka noo daadihin doona inooga sheekayn doona wadaniyada waxay tahay fahansiin doona haddii Ilaahay ku idmaayo kulankan waxaa gacan weyn ka geystay oo soo agaasimay madasha nabadda isdhexgalka dhalinyarada waxaana haddii Ilaahay idmaayo qayb weyn ka qaatay dad muxsiniin ah Soomaaliyeed oo jecel in ay maaragtay horumar gaarto dhalinyarada Soomaaliyeed wadaniyada sideedaba wax la barto weeye wax lagu dhasho maaha waa wax la barto weeye dadka ay bartaan inay dhulkan leeyihiin inay horumarintiisa ka shaqeeyaan inay aayatooyinkooda jilba jiil uga dambeeyo ay ku fakaraan barnaamijka noocaas weeye maarta wadaninimadu ma ahan wax lagu dhasho laakiin waa la bartaa waxaan idin soo jeedinayaa inaad barataan hadda Soomaaliya markii la fiiriyo xilliga hadda la joogo iyo xilliga ay dawladda ahayd wax badan baa u dhaxeeya xilligii ay dawladda ahayd anu dhalinyaradii aan kala ahaa wax wadaniyad liyaado oo igu jirta ma jirin wax wadaniyad liyaado oo igu jirta ma jirin laakiin inaan nin Soomaali ahay oo dhulkan ku dhashay oo dawladda Soomaaliya dawladda tahay kaliya ayaa aqoonsanaa inay jirtayna waxa ku ogaanaysaan dalkii Soomaaliya markuu burburay gabigiisa dhulka la dhigay warshad iyo wado iyo guri iyo meel dadweynuhu leeyahay dhulka la dhigay waa la baabaashay waxay taasi ka turjumaysaa inaan wadaniyada dadku aqoon u lahayn intiisa badan ama jiilka yarka oo dhalinyarada ah ilaahay baa mahad iska leh magaaladan gaalkacyo maalinba heer bay maraysay aniga iyo maxamuud yaasiin kaliya kama aanan shaqayn karin wanaaga iyo fafaalihiisu maanta muuqdo intiinaan iyo in kale oo reer gaalkacyo iyo dad naga sareeya iska leh waa mas'uuliyad la wada qaatay oo laga wada shaqeeyay ilaahayna waafajiyay baana mahaddas iska leh inaguna nasiib baan u yeelanay inaan gaalkacyo isbedeshay aan dhex joogno oo maayra ka ahaano waxaan rabaa mowduuca meesha ku qoran oo wadaniyada iyo walaalnimada waa mowduuc muhiim ah weey Soomaaliya dagaal bay soo martay way kala qaybsantay dib u heshiisiin dhab ahna lama gelin wali dalkoo dhan baa u baahan gaalkacyana waa meelaha ugu halista badan loo oo colaadaha ugu badan ay ka jiraan oo soo laalaabtay maanta dadkeedii intii badnayd waxay garteen in ay walaaloobaan in ay nolosha u bedelaan qaabka haddii lagu jiray mid ka fiican arrintan kale oo wadaniyada runtii waxaan is leeyahay in laga hadlo ama la bilaabo way fiican tahay wadaniyada oo waliba dhalinyarada loo sheego laakiin kuma filna maalin iyo labo dhalinyaro in looga sheekeeyo wadaniyad waayo sida suldaanku uu sheegay wadaniyadu xitaa waxay ka maqnayd jiilalkii hore oo dawladnimada haystay bay ka maqnayd maxaan moodaa marka jiilalkan aan dawladnimada ku soo korin ama burburkii dhashay xageed joogtaa wadaniyadooda anigu waxaan ku talin lahaa oo waliba waxaa la lahaa wixii gaalkacyo ka bilowday ma joogsadaan bal dhahay aan waxaan oran lahaa qodobadeena maanta aan ka hadlayno qodobka ugu muhiimsan aan ku darsano waxbarashada dhalinyarada maada kamida wadaniyada in lagu soo daro iskuul kasta meel kasta ku yaalo magaalo kasta ku yaalo waa in jiilalka ka dambeeya aan barnaa wadaniyadu waxay tahay inay dhul leeyihiin iyo inaysan qabiil gaar ahayn inaan taa barno wey bahda saxaafadda dhalinyarada dhammaantiin wakiilada hay'adaha qurba joogta dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacsalaan runtii maanta waxaan joognaa madal aad u qurux badan
waxaanu joognaa madal aanu is oran karno gaalkacyo way dhaqaaqday waxayna saartay dhabbadii horumarka iyo midnimada Soomaaliya maasha Allah runtii xaalado fara badan baan soo marnay wajiyo kala duwan iyo xaalado kala duwan bay gaalkacyo soo martay waxaan oran karnaa maanta waxaan joognaa xaalad la oran karo gaalkacyo way guuleysatay ilaah baa ku mahadsan waxaa ku mahadsan dhalinyarada magaalada gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa ku mahadsan maamulka Puntland iyo maamulka Galmudug iyo dhammaan cid kasta oo ka shaqeysa midnimada iyo horumarka magaalada gaalkacyo dhammaantood baa ku mahadsan anigu waxaan ka soo jeedaa dadkii Soomaaliya waagay Soomaaliya dawladda ahayd joogay ee waaweynaa oo Ilaahay cimriga siiyay alxamdulillah maalin dhaweyd ayaan anoo xamar joogo waxaan raacay bajaaj wiilan yaraha waday markaasuu meel khaldan maray waxaan warmaandho heedhe waxaan sax maahay maxaa u sameynaysaa dawlad la'aanta dhibaatada ay leedahay kamid tahay markaas wuxuu igu yiri eedo hadaa adigu dawlad soo aragtay oo aad dawlad haysan jirtay oo aad dawlad ku soo dhaqantay dawladii idinka burburiyay idinka halkaana dhigay wadankii intaad ku soo bashaasheen oo wax ka barateen oo ku caqliisateen baad annagii naga burburiseen marka annagu wax dambi aan leenahay ma jiro ayuu yiri kaas dhalinyarada marka waxaan ka codsanayaa inay iska kaaya cafiyaan khalad baan idinka galnay waa run wadankii intaan yacni nolol fiican soo marin runtii waxbarasho ha ahaato caafimaad ha ahaato nabadgelyo ha ahaato markaan ku soo faa'iidnay ayaan idinkii meel xun idinkaga tagnay marka waxaa moodaa waajibkeennii inaan ka soo baxnay in nabadii gaalkacyo ay sii xoogeysanayso insha Allah tacaala waxaan rajeynayaa in guulashan ka sii wanaagsan la gaaro waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa dhalinyarada barnaamijkan soo abaabushay oo muujinaysa in gaalkacyo nabadeedii ay hirgashay siina socoto waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin ajri xasanaad Ilaahay idinka siiyo waxaa jira dad diidan in gaalkacyo ay isku furanto laakiin markay arkaan annagoo garbaha haysanna oo wada joogno oo wada caweynayo in badan oo kamid ah waniye jabayaan waa arrin iyo didiilo iyo farxad leh runtii dhalinyaro reer gaalkacyooda oo midaysan oo hal mid ah hadafkooduna uu noqon yahay inay magaalada noqoto hal mid oo leh hal astaan iyo hal magac iyo hal identity oo ah reer gaalkacyood hadafkeenu waa inuu intaa noqdaa haddaan hadafkeenu intaas noqon oo aadan ku faanin anigu reer gaalkacyood baan ahay laakiin gaalkacyo waxaan ka yimid koonfur iyo waqooyi taas waa ceeb gaalkacyood baan ahay haddaa xamar tagtay haddaa garow tagtay xayaga timid baa lagu leeyahay waxaa lagu leeyahay inaad tiraa gaalkacyaan ka yimid nin reer gaalkacyooda hadduu wax ku guulaysto reer gaalkacyood baa ku guulaystay oo ogeydeen hadda France ciyaarta World Cup soo ma daawanayn idinkoo dhan waa taqaanin Kanta Pogba muxuu ahaa ii sheeg nimanka midmadooba meesha wada ciyaarayay ma wadamadii ka yimaadeen baa la oranayay ma Pogba waxa la ka yimid Mali baalkii ay dhantii ay wateen wuxuu ahaa muxuu ahaa France meesha rabaan kalarku waxa la haado intee muslim ciyaarayay waxa la rabaa inaad nabadda sida uga shaqeynaysaan aad horta adigu mid ka ahaataan hadda waxa leedihiin waxa la laba maayir baa leenahay laba gobol baa leenahay laba gudoomiye leenahay dhalinyarada horta waxaan hadda ka horna waa idin sheegay gobolka dhalinyarada hebel baa gobol ah iyo hebel baa gobol ah inta iska daysaan adinku dhalinyarada tihiin SWL baa tihiin hal gudoomiye horta yeesha iyo ku xigeenadiisa hawlihiisa iyo degmooyinkiisa oo degmooyinkan hadda labada dhinac kala dhigayno waa inay laba xaafadood oo kala yihiin marka arinta si fiican isugu dabarida isku xariiriya nabadda ka shaqeeya anaguna waan kala shaqeynaa haddii aad maanta dacwo noo qabsado leeyahay dadkii wadanka soo baabiyaa tihiin naga raalli ahada wax kasta oo wanaagsan oo Soomaaliya ay guula ku gaadhay gobolkan iyo magaaladan ayaa dad ahaaba horseed u ahaa sidaan taariikhda ku hayno waxa la idinka rabaa marka halkan maanta hawsha ka bilaabatay oo aynu halkan u fadhino oo aan ognahay qayb badan oo idinka mid ah inay idinku weynayd oo aan ognahay qayb badan oo idinka mid ah inaad ka shaqeynayseen oo aan ognahay qayb badan oo idinka mid ah inaad jeclaan lahaydeen inaad ogaataan wixii la ahaa iyo sidoo hore loogu socon lahaa waxa la idinka rabaa adeerayaal halkan arinta maanta ka bilaabatay inaysan istaagin
halkan maanta arrinta ka bilaabata inaysan istaagin in isbarbaryaac looma baahnee loo yeesho hormood iyo midnimo iyo isku xiraan in laga shaqeeyo sidii dhallinyarada jiilkiina dhammaan ay ku gaari lahayd in laga shaqeeyo dhallinyarada cuslaatay aanba gadaal isu soo dhige oo anigu aan ka mid ahay in la kaxaysto in loo baahan yahay dadkii hore oo maamasaarayina kala joogaan laftigoodana inaan jiidano kaxaysano saynu wax uga dhaxalo wax ugala haddii lahayn halkaas ayaa waxaa ku jira midnimadeenna halka ayaa waxaa ku jira horumarkeenna halka ayaa waxaa ku jira wadaniyadeenna haddii lahayn